howlgal culus oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka argagixisada ayaa ka dhacay dhul hawd ah oo aan ka fogeyn deegaanka Caglibaax ee gobolka Jubbada Hoose. Aaga uu howlgalka ka dhacay waxaa godad dhulka hoostiisa ah ka samaystay khawaarijta, waxaana halkaasi ku dhuumanaya horjoogyaal waaweyn oo la aaminsan yahay inay isugu jiraan Soomaali iyo ajaanib. dad ku safriya wadada xiriirisa degmooyinka Afmadow iyo Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa goorsii horeysay walaaqijiyay in casir liiqii shalay ay jidka isaga hor yimaadeen koox argagixiso ah oo si tagaari nooca Soomaalidu ay u taqaana dhaynada oo ay ku wateen baqtiga argagixisada lagu xasuuqay howlgalka. dhulka hawdka ah ee uu ka dhacay howlgalka waxaa la aaminsan yahay in horjoogyaal waaweyn ay gabaad ka dhiganayeen, waxaana taasi muujinaysaa sida ay dhan walba walxaha qarxa ay ugu aaseen, taasoo ay aaminsanaayeen in ay ku badbaadayaan, balse geesiyaasha Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka gaar ahaan kuwa u tababaran fashilinta walxaha qarxa ayaa guda galay sidii wax kama jiraan looga dhigi lahaa wax walba oo ay islahaayeen wax ku dhibaateeya. saraakiisha oo aan la hadlay waxay noo xaqiijiyeen in howlgalkaasi la soo afjaray maleeshiyaadkii godadka ku jirayna ay noqdeen wax cagaha wax ka daya iyo kuwa markaasi halkaasi lagu xasuuqay. ciidanku waxay saacadihii dambe ee howlgalkaasi adeegsanayeen in ay duqeyn xooggan u geystaan argagixisadii meesha ku jirtay, taasoo suuro gelisay in argagixisada barna la laayo in kalena silac ay halkaasi uga baxsadaan.